waxaa saacadihii ugu dambeeyey social mediaha aada u qabsatay fariimaha hambalyada ee loo dirayo boqorada isteelka iyo sidoo kale haykal kuwa oo la sheegaya in meherkooda uu dhacayo isbuuca horteena. waxaa dhowaan magaalada muqdisho ku aqalgeli doona mariya abshir oo ku magac dheer boqorada isteelka iyo haykal muuse. lamaanahan muddooyinka dambe aada ayay isaga agdhowaayeen, waxaana intooda badan ay shaaca ka qaadeen in meherkooda uu dhacayo isbuuca horteena. sida labada ogsoon yahay ama dadka badankiis ay la socdaan, boqorada isteelka iyo haykal waa dhalinyaro aada loogu taxan yahay marka ay timaado muuqaalada madadaalada ee lagu baahiyo social mediaha, waxaana inta badan dadka ay sheegaan in uu xiriir jacayl oo aada u baaxad weyn uu ka dhexeeyey labadooda, kaasi oo marar badan ay isku dayeen in ay ka gaabsadaan ay kusoo bandhigaan social mediaha, laakiinse uu jiray tuhun ah in uu haasaabo ka dhexeeyey. si kastaba waxaa saacadihii ugu dambeeyey social media aada u qabsatay dhambaalada tahniyadda ee loo dirayo boqorada isteelka iyo sidoo kale haykal. dadka badankiisana waxa ay tahniyado kala gedsan ay hawada u marinayeen iyagoo aada ugu faraxsanaa meherkooda amaba xafladda arooskooda aada markaasi usoo dhoweynayo. haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo laba qofood oo social media caanka ah oo is aroosaya. waxaa horey u midoobay oo qoysiya galeelay nuurdiin KL iyo sidoo kale Atrisha Baadiyo, kuwa oo labaduba ka mid ah dadka aada looga yaqaano social mediaha, misna is aroosay amaba qoys dhistay. inkastoo dadka caanka ka ah social mediaha mar alaala marka la weydiiyo dooqooda iyo gayaan xulashadooda iyo marka ay timaado guur in ay guursan lahaayeen qof sidooda kale social media caanka ah, intooda badan ay ka biyadiidaan. haddana haykal iyo boqorada isteelka labaduba waa dhalinyaro aada loogala socdo baraha bulshada, haddii uu noqon lahaa TikTok amba YouTube. haddana waxaan u rajeynaynaa in ay noqdaan qoys waara, islamarkaana alla dhexdooda uu ku abuuro jacayl aan dhammaan oo baaxad weyn. marka ay social mediaha lamaanuhu ay intooda badan kusoo bandhigaan macluumaadkooda iyo waxyaabaha xogaha gaarka ah, waxaa dadka intooda badan ay aada uga dayriyaan sii joogitaanka amaba in xidhiirkaasi uu noqon karo mid qoto dheer oo baraaray iyo bashbash gaaro. waxaan u rajeynaynaa in alla subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyo isha xasidka, islamar ahaantana ay noqdaan laba qofood oo isu midooba, islamar ahaantana nolosha isu dhammaysta. haddaba waayadii ugu dambeysay waxaa aada u kordhayay lamaanaha soomaaliyeed ee social media caanka ka ah, kuwaasi oo intooda badan furiin uu soo kala dhexgelaya amaba qoysaskooda ay burburayeen, taasi oo loo aaneynayo nolosha brivatka ee social media aada loogu soo bandhigo laguna faahfaahiyo. waxyaabaha ugu badan ee dadku ay wax iska weydiiyaan waxa weeye inta badan dadka markaa ay qoys noqdaan ama ay midoobaan in haddana ay muhiim tahay in ay ka dheeraadaan wax weliba oo guurkooda iyo sii joogitaankooda nolosha haddii ay timaado wada joogitaankooda markaasi aada u soo koobayo, taasoo ay ugu horeyso in wax weliba oo iyaga ka dhexeeya ay diiradda saareen marka ay social media ku jiraan.